السلام عليكم أصحابتا waan idin salaamay channelka daawaneysaan waa Safa Beauty waxaan idin leeyahay isku soo laabad wanaagsan maanta maxay idin wadaa maanta waxyaalo badan ayaan idin wadaa waxa u maleynaa inaad ka heli doontaan insha Allah gabdhihii iga sugayay suuniyaha inaan u hagaajiyo ayaan maanta hawshoodii u wadaa sidoo kale hadda channelka ku cusubtay soo dhawow hadda hore noola joogtay mar labaad mar saddexaad intee noqoto waxaan ku leeyahay soo dhawow hadda sida aragtaan boo hadda daamadooysadii ayaan suuniyaha hormarinaya asxaabta daamadooysadii ayaan rabaa inaan hawsha ka bilaabo suuniyaha markaan soo shanleeyay kadib daamadooysadii ayaan soo qaatay daamadooysadii ayaan marinayaa sidoo kale daamadooysada markaa marinaysidna waa inaa ka taxadirtaa gacantaada oo tartiib ah u marisaa sababtoo ah daamadooysada iyo jeelka caadiga oo suuniyaha la marsado isku mid ma ahan kaas wuu adag yahay kana wuu jilacsan yahay marka mar walba waa inaad tartiib u marisaa oona ka taxadirtaa asxaabta sidee hadhooti kaaga halaawin marka waxaan ku leeyahay marka asxaabta waxaan idin leeyahay mar walbo si tartiib u marso sidee adigan hadhooti qurux kugu soo baxdo oo maasha Allah si fiican ay kugu noqoto mid kale daamadooysada markaa qasiisidna waxaan kaala talinayaa ha ka badinin biyaha hadaa zaaid ay kaaga jilcdo hadhooti waa isku rafaadaysiin sidaa rabtayna ma kugu noqonayso marka isku day inaysa zaaid kaaga jilcanaanin oo xoogo normal ka dhigatid soo marka hadeertaan asxaabta sida aragtaan boleenkii hadda wuu ii toosay maasha Allah sidii horeeto wuu dhaamaa waa aragtaan hadda labadii suuniyo markaan mariyay sidaan ayay ku soo wada baxeen xoogo yar ayaan u soo sugay intay ka soo qalalayaan wax yar hadda way ii soo qalaleen ma qoyna sida aragtaanbo dhalaal zaaid ay kama muuqdo markay ii soo qalaleen kadib ayaan waxaan soo qaatay bleachki ayaan rabaa hadeertaan inaan ku sii yareeyo sababtoo ay inay zaaid u yaraadaan oo waxaa rabaa tinta banaanka jirto ee jirka kaleeto u ekaato marka bleachka ayaan marinayaa maadaama tinta la xiiri karin suuniyaha oo xiiritaankana wax fiican ay ahayn marka bleachka aan ku dhihi lahaa isticmaal meesha ka xiiri lahayd marka bleachki ayaan hadda soo isticmaalay bleachkana sida u jeedaanbo brushkan ayaan aniga ku isticmaalaa markaan kor marinayo brushka sida aragtaanba marka horeeto kor ayaan ugu jiijiidaa sidii oo meelana ay igaga halaawin oo si fiicanna ay ugu toosto dib ma lahan hadee wax yar intaas aan iga gaarto camal ay ka gaarto waa ka toosin kartaa hadhooti marka wax badan aad daran inay ka halaawdo markaa marinaysid bleachkana isku day inaa maxaa la dhahaa tartiib u marisid asigana oo wax yar saas aan ugu taabanayo camal aa ugu taabatid oo leenka inaa la sintid oo haddana kor aa u qaadid sidii oo maxaa la dhahaa suuniyaha sidaa rabtid leenka ay kugu toosmaan hadda waxaan soo qaatay geedkan yar sida aragtaanba waxaan soo qaatay qorigan yar qorigaana waa kii dhagaha lagu qoriyeynayay ma aha wax kaleeto zaaid ayaan anigu u isticmaalaa zaaid ayuun ii saacideeyaa idinkana isticmaala si ayaan idin dhihi lahaa isticmaalaa sida ujeedaan leenkani hadda sidaan ula socdo waa ujeediin leenkii bes ayaan raacayaa waa adigoo isha concealer marinayo oo kale ee lamid tahay soo haddaa concealer taqaanid sidii loo mariyo bleachna waa marin kartaa wax dhib e ma lahan sidii concealerka aa u ilaalin lahayd oo leenka ula soco lahayd aa bleachkana u marinaysaa wax saas ma u kala dhexeeyo marka isku day inaa maxaa la dhahaa niyadaada aa gelisid waa samayn kartaa waxbaha isdhihin ma samayn karo waxaan ma aqaano weligay ma samaynin waa iska easy mana adko haddaa isku daydid insha Allah waxaan u maleynayaa inaa ku guuleysan doontid haddaa isku daydid soo marka hadda korna wax yar ayaan ku laabanayaa maadaama kor markaa brushka ku marinayay oo qafiif aan kasoo dhigay hadda waxaan rabaa inaa wax yar aan ku celceliyo bleachka sidii oo hadhooti ee hal mar ay igugu soo baxdo marka wax yar ayaan ku celcelinayaa bleachki haddana kor sida aragtaanbo waxaan rabaa inay maasha Allah intaas qurux leen raadineynaa marka dhib malaha isdhihin maanta oo dhan maxaa wax badan loogu laabanayaa marka adigan intaa ku laabatid ayaa qurux isha ku noqonaysaa marka isku day inaa maxaa la dhahaa ku dadaashid oo si fiican uga celisid sida aragtaanba ishaan waa mariyay sidaan ayaa kusoo baxday ishi kalena waa ujeediin hadda farqi weyn ayaa u dhexeeyo tanna way yaraatay tanna zaaid ayay u weyn tahay haddaa dareemaysaanbo marka hadda ishi kaleetana waa marinayaa asxaabta waxaad idin leeyahay daawasho wacan
asxaabta sida aragtaanba sunihii sidaan ayay kusoo baxeen. hadda labada ilbo waa ujeediin maasha allah si qurux badan ayay kusoo baxeen. xoogo ayaan maxaa lahaa u sugayaa. hadda intaan u sugin ka hor dhexdaaneeto haddaa tin ku leedahay meeshaan dhexda waa marin kartaa sidii oo tintaadaana hadhowti ee jirka ee u ekaato. haddii kaleet hadhowti tintaas keligeed ayaa madoowaanayso. hadda xoogo ayaan u sugayaa inay qalasho. markay qalasho ayaan dhaqi doonaa. asxaabta xoogo usug adigana ilaa iska dhehaysid daawamadooye sidii way qalashay bleachkina wuu qalalay. hadda waa ujeedaan asxaabta maasha allah way iisoo wada qalaleen. daawamadoobeysadiina way ii qalashay bleachkina wuu qaleen. kan ayaan soo qaatay maxaa la dhahaa sababtoo haddaa maro adag soo qaadatid hadhowti qofkii way xanuunjinaysaa. marka isku day shay jilcan inaa qofka uga tirtid markaa uga tiraysid. aniga kan ayaan soo qaatay suufkan. suufkii ayaan qooyay sidaa aragteen biyihii ayaan ka miiray kadibna asiga ayaan ku titirayaa. markaa kan ku titiraysidna qofka naxariis ayuu dareemayaa mana xanuunjinaayo wejiga. waxyaalaha kaleeto way xanuunjinayaan markaa marisi sababtoo waxaa wejiga marisay marka horeeto waa bleach. soo marka qofka oga isku day inaa marka horeeto shay yar aa uga titirtid. sidaa aragtaanba hadda suniyihii xoog ayaan ku titirayaa. ma titirmaayaan sababtoo daawamadoobaysadii way ku qalashay. laakiin aniga waxaa rabaa inay brown ii noqoto. saas daraadeeda xoog ayaan ugu celcelinayaa sidii xoogo aan daawada uga kal yareeyo. marka daawadii waan ka kal yareeyay. ishi kale waan soo titiray. haddana ishi ayaan usoo laabtay dhinaci kaleeto. midaan kaleetana waan tirtirayaa. markaa tirtiraysidna haddii tartiib waqti iska geli insha allah way ku qurux badnaan doontaa. adigana haddaa isku daydid sidaa aragtaanba sidaas ayay usoo dhaqmaysaa. bahalkina sidaan ayaan u madoobeeyey asxaabteyda. insha allah waxaan rajaynayaa inaa wax badan ka faa-iidi doontaan gabdhihii sugaayeen iyo gabdhihii kaleeto oo ayagana wada rabeen. marka waxaan idin leeyahay insha allah ka faa-ida wax walba waxaan u sameynaya waa madaxiina iyo sida quruxda badan oo idinka mar walba aa ii dhiiragelisiin. waana mahadsan in badan waa ujeedaan. hadda labadii il sidaan ayay noqdeen. waxyar ayaa maxaa la dhahaa riigmo yar ayaa banaanka igaga soo baxday meeshaas aan marinayo camal. hadda sidaa aragtaan waxyar ayay banaanka iga soo aaday. mana rabo inaa concealer isticmaalo. marka bleachki ayaan haddana waxyar u laabanayaa sidii oo waxaas ay igaga titirmaan ayaan rabaa. marka bleachkii ayaan labadii ilbo ku celin doonaa asxaabta waana arki doontaan. waxaan idin leeyahay daawasho wacan.
asxaabta sida aragtaan sunihii sidan quruxda badan ayay ku soo baxeen hadaa rabin suniyaha inay brown ka noqdaan tookada labaad bleachka waan ka daay kartaa halka mar bleachka ayaan ku dhaafi kartaa aniga sidan ayay igu soo baxeen sidan ayaan ka helay idinkana insha Allah labada si saarabtid waa sameyn kartaa waxaan ku leeyahay videoga hadaa ila garay sidoo kale ha ka iloowin hadaa channelka ku cusub tahay subscribe-ka gambaleelka furo sidii mar walba waxaan soo geliyo ay kugu soo dhacdo asxaabtaadana la share garay wax allaala wixii kala jeceshaa inaa ku sameeyeen host comment-ida igu soo reeb asxaabta waxaan idin leeyahay waana inoo videoga dambo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh